عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي ونكسن جاليال فرينتا هالكان قدرينو ما أنتو حيكوسا بسطها كورتك عابقة كوفيد 19 iyo ilaalinta badqabka ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalooyinka kala duwan ee dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Tokat ee bartamaha dalka Turkiga sida aan wada ogsoonahay caabuqa COVID-19 wuxuu soo ifbaxay bishii December 2019 sanadkii dhamaantayna Suudiya caabuqan oo ah mid si xoolo ah isaga gooshay dunida bari ilaa galbeed kaasoo dalalkii uu gaaray si baan u halkiyay ilaa hadda tirada dadka u geeriyooday ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof waxaan si gaar ah halkan uga tacsiyeynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii u geeriyooday cudurkan COVID-19 oo ugu horeeyo ra'iisul wasaarihii hore mudane Cornel Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde haddaba sida aan xogta ku hayno gobolka aan haatan ku sugannahay wuxuu noqday gobolkii 17aad ee uu ku faafay cudurkan la yiraahdo corona COVID-19 tirada dadka la baaray oo laga helay waa ilaa 80 qof halka ay jirto dhimashadana 5 qof kadib wixii soo kordhi kara ama dadka ka xafmaada kara ama dadka badbaadi kara ilaa hadda ma cadda dhabtii ma hubno tirada saxda ah uu saameeyay cudurkan sababtuna waxay tahay lama garan karo 80 qof ee cudurkan laga helay inta qof ay xiriirka la yeesheen waxaa dhici karta in tirada dadka uu haleelay ay intaas ka sii badnaan karto sidaa daraadeed anagoo og aafada iyo faafitaanka degdeg ah ee uu caabuqan ku caan baxay si aan u gudano mas'uuliyadda naga saaran badqabka caafimaadka iyo ilaalinta ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Tokat waxaan si adag u faraynaa in ardaydu ka digtoonaadaan caabuqan isla markaasna aysan soo dhaafin guryaha ay degan yihiin isu socodka iyo kulamada aan muhiimka ahayna ay joojiyaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan cod dheer ugu baaqaynaa in ardaydu u hoggaansamaan fariimaha joogtada ah ee wareegtooyinka isdabayaalka ah ay soo saarayso wasaaradda caafimaadka dalka Turkiga haddaba waxaan ku soo gabagabeynaa hadalkayga oo aan ugu direynaa fariin guud ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan inta dalka joogtay inta dibadda joogtaba in laga feejignaado cudurkan oo si fudud loo kala qaadi karo lana dhageysto digniinaha ay soo dirayaan waaxyada caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka gobolka leh waxaan mar labaad mar saddexaad ka codsanayna qof walba si inuu taxadar dheeri ah u sameeyo kana taxadaro naftiisa kuwa ummadaha kalena ka taxadaro haddii naftaada badbaadiso naf kale badbaadisay sidaas awgeed taxadar dheeri aan muujino nadaafadda lagu dadaalo sidaas awgeed diinteena suuban waxayna faraysaaba nadaafadda cudurkan waxa ugu horeeyo oo ugu muhiimsan loo hortagi karo waxay tahay in nadaafadda lagu dadaalo qof walba taxadar dheeri ah muujiyo kulamada aan muhiimka ahayn ilaa xadanba laga helayo qof walba gurigiisa inuu joogo familkiisa waqti la qaato wax ka fiican ma laha sidaan wada ogsoonahay nadaafadda waa shay aad u qaali ah ummadeennuna waa dad islaam ah insha Allah waxaan ilaahay ka rajeynaa cudurkan inuu caafimaad taama ka siiyo dadkii uu waxyeelo u geystay dadka u dhintayna jannatul firdaws ka waraabiyo inteena nool ka badqabtana ilaahay naga xifdiyo musiibo walba iyo balay walba ee soo kordha إن شاء الله تحدى بيري هاي نوبلنا